بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديال halkan waa studio-ga koobada TV-ga madaxa banaan ee Bulsha TV oo ku leeyahay xaruntiisa magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray aamintii aan hawadeedii soo mari jirnay war waxaanu idinkaga haynaa dalka gudihiisa iyo dibadiisaba qodobada ugu doorka rool wararkeena caawana waxa kamid ah maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Jaamacaare ayaa waraysi uu maanta warbaahinta siiyay waxa uu kaga waramay baaritaankii uu salaasadii hanti dhowraa shirkadda isgaarsiinta telefoonada ee Telesom ayaa maanta ka warantay sababta keentay inay nambaro cusub ku soo kordhiyaan telefoonada ay isticmaalaan macaamiisheedu مسؤولين محكمة سرية أيام سو جبجبيسة حر نظاميها أنشح ينشح مريض الجرسورية شعواي مالمها بوسو بندقين بالشدة داود يال قواس وحها ينقض بدو قطور كرولن وركين عاوا إمكيها تنو ديار جروبا يسقي وفا فحصن maareeyaha madbacadda qaranka Cabdilaahi Maxamed Jaamacaare ayaa maanta warbaahinta u xaqiijiyay in qaar ka mid ah shaqaalihiisa loo xidhay eedayn la xidhiidha musuqmaasuq maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Jaamacaare ayaa waraysi uu maanta warbaahinta siiyay waxa uu kaga waramay baaritaankii uu salaasadii hanti dhowraha guud ee qaranku ku sameeyay xarunta madbacadda maareeyaha Caare ayaa sheegay in qaar ka mid ah shaqaalaha madbacadda loo xidhay eedayn la xidhiidha musuqmaasuq ugu dambeyntiina waxa uu maareeyaha Cabdilaahi Maxamed Jaamacaare sheegay in wali uu socdo baaritaanka uu hanti dhowruhu ka wado xarunta madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadiyaan arintan ka dhacday si koobantii ka waday horta baaritaan ku socdo madbacadda hadda ma jiro wax baaritaan oo ku socdo ma jiro waxa jirtay maalintii salaasadii waxnimada hore adigu ilaa 8 meelahan halka waxa lagu yimid qolada hanti dhowr markii hanti dhowr kuma yimaadeen warbay iyagu daba socdeen markaa hawshii markaa iyagu socdeen waa fishadeen iyadoo halkan madbacadda ka qabteen laba nin midna yahay agaasimaha farsamada midna yahay ninkan han lambarka haya ee waraaqaha ku lambarada laba saacadood meelaha saacadood kadib wixii waraysi ka rabeen agaasimaha guud agaasimaha farsamada way soo daayeen ninkii kalena ilaa hadda baaritaan ayaa ku socda مسؤولين محكمة سرية أيام سو جبجبية حر نظاميها أنشح ينشح مريض الجرسورياشة وأي مالمه يقدم بيه بوسو بندقين بالشدة مسؤولينta maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta soo gabagabay qaybtii saddexaad isla markaana qaybtii u dambeysay ee barnaamijka wacyigelin ah kaas oo ku saabsan xirnidaamyaha anshaxa iyo anshax marinta garsoorayaasha iyo xirlaalayaasha qaranka gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee Soomaaliland garsoore Yaasiin Xasan Ismaaciil oo weheliyo xubin ka mid ah gudida xafiiska dabagalka cadaaladda Cabdulaahi Cabdi Aadan ayaa maanta soo bandhigay qaybtii u dambeysay ee xirnidaamyaha anshaxa iyo anshax marinta Soomaaliland mas'uuliyiinta maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa barnaamijkan wacyigelinta sameeyay si ay bulshada reer Soomaaliland aqoon ugu yeelato habka iyo qaababka kala duwan ee bulshada ay cabashada ka qaban garsoorayaasha iyo xirlaalayaasha ay madaxda sare ugu soo gudbin lahaayeen xirnidaamyahan oo ka kooban 390 isla markaana golaha wakiilada Soomaaliland ansixiyay bishii August sanadii 2012 ase yeeshee sida ay sare mas'uuliyiinta maxkamadda sare ee bulshada reer Soomaaliland aanay taas Sakariye Xasan Raage telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Hargeysa gudoomiyaha gudida dhaqaalaha ee golaha deegaanka ee Hargeysa mudane Maxamed Aw Aadan Weyrax ayaa ugu baaqay hantiilayaasha ay ku waajibtay cashuurta oo aan bixin cashuurta inay degdeg u soo xareeyaan cashuurtii ku waajibtay gudoomiyaha guud hoosaadka dhaqaalaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa xildhibaan Maxamed Aw Aadan Weyrax ayaa ugu baaqay hantiilayaal badan oo aan bixin cashuurta ku waajibtay in ay iska soo bixiyaan cashuurtaasi oo ah buu yiri waxa kaliya ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ay ku shaqeeyaan ummadana ay wax ugu qabtaan gudoomiyaha gudida dhaqaalaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa xildhibaan Maxamed Aw Aadan Weyrax oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV oo amurahaasi ka hadlaya waxa uu yiri dadkii
lagu lahaa cashuurta siba ardiyadaha lagu leeyahay dhulka waaweyn ee danaha garanaysaa danaha guud ee la bixiyey iyo dhulkii dadkii dhulka caadiga ah qaatay ayaana waxba ka haynin lacag badan baana halkaa jiifto dowladda hoose leedahay lacagtaasi waxaan qabaa mashaariicda aanu samaynay iminka aanu ku tala jirno in sanadkan la qabto haddii lacagtaasi noo soo weynto wax badan bay ka taraysaa ninkaan ku leenahay 50,000 oo shil hadduu 50,000 keeno dee 400 qof oo 50,000 keeno waad garanaysaa lacagtay noqonayso. xildhibaan Weyr Axmed uu ka hadlayay waxyaabaha ay qorsheeyeen ee ay imika gacanta ku hayaan waxa uu tilmaamay in ay diyaariyeen mashaariic badan oo caasimadda lagu horumarinayo kuwaasi oo ay ka mid yihiin wadooyin ceelal biyood allaydad iyo wixii la mid ah sidoo kale xildhibaan Maxamed Aw Aadan Weyrax waxa uu sheegay inuu yahay xildhibaanka kaliya ee dib ugu laabtay ummadii soo dooratay isla markaana wax ka weydiiyay xaaladda ay imika ku sugan yihiin. anigu waan ku noqday dadka ku noqday baan ka mid ah ee weliba dhiiri gelinayay xildhibaanada kale ee Somaliland ma hargeysa qura dhowr gobood baan ku noqday ay ka mid tahay maxaan ku leedahay jiidan darweyl iyo jaleele iyo xubweyl iyo tacarburg iyo dhulka erid codka u badla marka waxaan dadka tusiyo dhiiri gelinayay xildhibaan kasta inuu saasoo kale yeelo waa baankii laga soo doortay dadkii ku noqday wallahi waxaan meel fog baan tagay waxaan dadka qaarkoodan kala kulmay qaar baa way guri wariyo dadka Muuse Maxamed wada kala wada ahaada ku intooreen markii aan dib u noqday gudoomiyaha gudahoosaadka dhaqaalaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Maxamed Aw Aadan Weyrax waa mid kamid ah xildhibaanada degmada Hargeysa uga soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee cadaaladda iyo daryeelka wacyi. daawadayaal wararka kale aanu dalka gudihiisa idinka gahaynana waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa dhabaal tacsiya u diray xildhibaan Axmed Maxamed Maxamuud Afweyne oo ku geeriyooday maanta magaalada Hargeysa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu war-saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada oo dhignaa sidatan uu dhabaal tacsiya ugu diray shacabweynaha reer Soomaaliland iyo waliba xildhibaanada labada gol qaran. waxaana war-saxaafadeedkan lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu tacsi u diraya labada gole ee wakiilada iyo guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan golaha wakiilada Soomaaliland oo ka tacsiyadaynayo geerida naxdinta lahayd ee ku timi allaha u naxariistay xildhibaan Axmed Maxamed Maxamuud Afweyne oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa laguna aasay maanta marxuumka oo bariyahan u jiifay xanuun magaalada Hargeysa. sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu tacsi lamida u diraya ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo waliba shacbiga Soomaaliland isagoo ka tacsiyadaynaya geerida naxdinta leh ee ku timi madaxweynuhu waxa uu marxuumka uga baryayaa Ilaahay inuu naxariistii janno ka waraabiyo golaha wakiilada qoyskii ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaanba shacbiga reer Soomaaliland ee uu ka baxayna samid iyo iimaan ka siiyo. sidaasi waxa uu dhignaa war-saxaafadeedkan ka soo baxay qasriga madaxtooyada oo uu soo saaray afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Saleebaan Dhuxul. shirkadda isgaadhsiinta telefoonada ee Telesom ayaa maanta ka warantay sababta keentay inay nambaro cusub ku soo kordhiyaan telefoonada ay isticmaalaan macaamiisheedu. shirkadda isgaarsiinta telefoonada ee Telesom ayaa maanta faahfaahin ka bixisay laba lambar oo ay ku soo kordhiyeen lambaradii hore ee ay macaamiisha shirkadaasi isticmaali jireen sida lagu sheegay war-saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Telesom. waxaa si qoto dheer ay uga warameen maraaxilkii kala duwanaa ee shirkadu ay soo martay tan iyo sanadkii 2002 oo shirkadaasi la aasaasay. war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in shirkadu ay tahay shirkad saamileeya oo ay wax ku leeyihiin 1,200 oo qof oo muwaadiniin reer Soomaaliland ah. shirkadu muddadii ay jirtay waxa ay samaysay ay yiraahdeen dadaalo badan oo keenay in ay isbedesho nolosha bulshada iyadoo keentay adeegyo tiknoolajiyadeed oo wax weyn ka bedela kaabayaasha dhaqaalaha wadanka, nabadgelyada, horumarinta tacliinta, caafimaadka, isku xidhka bulshada miyiga iyo magaalada iyo guud ahaanba isku xidhka wadanka iyo caalamka intiisa kale. muddadii ay jirtay shirkadda Telesom waxa ay soo kordhisay bay yiraahdeen
qalab casri ah si ay u daboosho baahida macaamiisha iyo wadanka taasi oo keentay bay yiraahdeen in 2006 la ballaariyo furayaasha shirkadu isticmaali jirtay oo lagu kordhiyo lambarka 4 kana dhigtay 7 good halkii ay ka ahayd 6 good qalab kasta oo shirkadu ay keento iyo ballaarinta shabakada shirkadu waxay u baahan yihiin bay yiraahdeen furayaal cusub oo noqonaya halbeega ama ciwaan uu qalabkaasi ku shaqeeyo si waafaqsan nidaamka caalamiga ah ee ITU labadii sano ee u dambeeyay waxa qorshaha furayaasha wax ku kordhiyay 11 wadan oo kala ah Mauritania, Switzerland, Seychelles, Georgia, Azerbaijan, Togo, South Africa, Djibouti, Gabon iyo Saudi Arabia. Shirkadda Telesom waxay ka mid noqotay wadamadaasi sidoo kale waxa lagu sheegay war-saxaafeedka maanta ka soo baxay xafiiska suuqgeynta ee shirkadda Telesom in dhammaan isbedelada ay shirkadda Telesom samaysay ay yihiin kuwa waafaqsan xeerarka Somaliland iyo ogolaanshiyaha wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland iyadoo oo sidoo kale si dhow ula shaqeysa shirkadaha telefoonada caalamiga ah ee wadamada adduunka ee ka tirsan ururka caalamiga ah ee shirkadaha moobilada ee GSMA isbedelka u dambeeyay waxa ay shirkaddu si toos ah uga heshay ogolaanshiyo wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland ugu dambeynaa shirkadda Telesom iyada oo wali ay jirto in dhammaan shirkadaha ka howlgala Somaliland iyo Soomaaliya ay wali isticmaalaan furihii +252 ee guud baartaan badan kadib iyo xiriir aanu la sameynay shirkadaha waaweyn ee telefoonada soo tabiya waxaa noo cadaatay bay yiraahdeen in dhammaan furayaashii ka dambeeyay +252 la isticmaalay oo ay diiwaan gashadeen shirkadaha isgaarsiintu saadarteeda furaha kaliya ee moobilka Telesom u banaanaaday uu noqday 360 saadarteedna ay shirkadu saaq u qaadatay dambarkaasi oo fure u noqon doona gabi ahaanba lambarada ay isticmaalaan macaamiisha kala gedisan ee shirkadda isgaarsiinta telefoonada ee Telesom daawadayaal intaasna waxa inoogu eg war waxaanu caawa idinka haynay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba intaaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waa anigoo Cabdiqani Dawlada iyo guud ahaanba bahdii Bulsha TV ee warkaygala qayb gashay oo idinkaga tagaysa sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh